Faras TV oo feed kasta aad kala socon kartaan wararka geeska iyo geliga Soomaalidu degto oo tafatiran. Inta aynaan wararkeena caawa u gudagelin fadlan subscribe sar channelkan si aad ula socoto xogaha hadda kuwada ugu dambeeya. Like-kana ha naga iloobin fikirkaagana hoos noogu reeb lana sii wadaag asxaabtaada oo shardeh. Waayahay wadaad wararka aan idiin hayno caawa kuwa ugu dhaylaysan faraqucunka ah ama hadda la soo lisay jumlaysan ee xoorkiilana waxaa ka mid ah Jamaacadda hubaysan ee xoreynta Oromada ee OLF oo sheegtay inay duqeyn doonaan diyaaradaha rakaabka qaada ee Itoobiya. Ciidanka jamaacadda TPLF oo gacanta ku dhigay korneelkii ugu faqfaqda badnaa milatarigii Abiy dagaalkii waqooyiga lagu qaaday. Mustafa Cachar oo jaatusay ugaas Mustafa Ciise dambiyana dusha u saaray. Heer sanatar iyo bihina garaad asugu burursaday dhuxul. Qodobo kale ayaa wehelin doona. kusoo dhawaada wararkaas oo tafaariiqaysan wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Marwa Sayriya. Soomaaliyey diyaaradaha Itoobiya iska jir Jamaacadda hubaysan ee xoreynta Oromada ee OLF ayaa sheegtay inay duqeyn doonto diyaaradaha rakaabka Itoobiya ee rayidka ah iyagoo ku tilmaamay inay 7 bilood ee ugu dambeysay aysan wax adeeg ah siinin shacabweynaha dalka haba yaraatee balse ay hub ka keenaan wadamo ajnabi ah si loogu gumaado shacabweynaha Oromada ee ay xoreyntooda qoriga u sitaan iyo shucuubaha kale ee Itoobiya. Jamaacadda ayaa xukuumadda Abiy ku cambaaraysay inuu si toos ah oo badheedh ah ugu isticmaalayo gaadiidkii ummadda inay hub soo geliyaan dalka kaasoo lagu gumaado maatida iyo maxasta Oromada iyo shucuubaha kale ee dalka. Waxay si gaar ah dambiga dusha uga saareen maamulka shirkadda duulimaadyada hawada ee Ethiopian Airlines. dhanka kale maamulka shirkadda duulimaadyada oo arrintan ka hadlay ayaa beeniyay kuna tilmaamay eedahaas jamaacadda waxba kama jiraan iyo hadal la iska yidhi oo afka baarkiisa ah. Haddaba waxaan dadka Soomaaliyeed ee raaca diyaaradaha Itoobiya ee u kala goosha dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba u sheegaynaa inay ka digtoonaadaan raacidda diyaaradaha Itoobiya maadaama ay suurtagal tahay inay jamaacaddu duqeymo culus u geysato xilli walba. Jamaacadda xoreynta Oromaduna tahay maanta mid aan awoodeeda la loodin karin cudud iyo sanadba. kala badna ay qabsadeen deegaankooda Oromada isla markaana ay ka howlgalaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha dalka kuna qalabaysan yihiin hub qeyrul caadi ah casri ah oo aysan xataa qaarkii haysanin ciidamada dowladda Itoobiya. Soomaali maryooley iska jir diyaaradaha Itoobiya. haddaba waa digniin kama dambaysa ha isku raacan haddii aadan rabin inay naftaadu halliganto. korneelshaan balbayo oo ka mid ah saraakiisha faqfaqda badan ee Abiy isla markaana hogaaminaya dagaalkii lagu qaaday deegaanka Tigray 7 bilood ka hor. TV-ga dowladana aadka uga hadli jiray isagoo leh TPLF waa soo afjarnay inta hadhayna waan ku raad joognaa ayay maanta nolosha ku qabteen ciidamada Tigraygu iyagoo ciidankii uu watayna waxay dilaan iyo waxay qabtaan ka dhigay. dhanka kale fayeenku u hadla TPLF ahna xubin guddi fulina Geetaajo Reda oo maanta hadlay ayaa sheegay inay toddobaadkan soo socda qaban doonaan caasimadda deegaanka Tigray ee Maqale isla markaana ay ka xorayn doonaan cadowga ku soo duulay deegaankooda iyagoo cagta marin doona una sii gudbi doona caasimadda dalka looga arrimayo ee Addis Ababa xarunteeda aradkiilo weliba. ciddii ka nixi iyo ciddii ku farxiba TPLF iyadoo oodo wadata ayay soo socotaa. waxaana xaqiiqa ah inay toddobaadkan oo idil dagaalo xooggan ka socdaan 12 goobood oo ka mida deegaanka Tigray oo ay iskaga xoreynayaan cadowga ku soo duulay deegaankooda. raggii TPLF ka sameeyay iyo TPLF kan ahaa iyo akale ku hayn jiray iyagay u taallaa say meeshay geli iyo meeshay aadi. TPLF iyadoo oodaheedii wadatay soo socotaa. bayaanka tirsigiisu yahay
2016 ee diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka anshaxa doorashooyinka Itoobiya cutubkiisa 2 qodobka 39 qodob hoosaadkiisa 3 wuxuu cadeynayaa in musharax kasta la bedeli karo bil ka hor maalinta codbixinta. qodobkani wuxuu ahzaabta siyaasadda u ogolaanayaa in musharaxii hore lagu bedeli karo musharax cusub 30 maalmood ka hor maalinta codbixinta. haddaba maalinta codbixinta doorashada deegaanka Soomaalida loo qorsheeyay waxaa inooga dhiman 77 maalmood oo u dhiganta 2 bilood iyo 15 maalin. haddaba iyadoo la adeegsanayo qodobkaas kore waxaa bishan u horeysaba wax badan laga bedeli doonaa liiskii musharaxiinta BB ee deegaanka Soomaalida, waxaana meesha la soo gelin doonaa xubnihii deegaanka hogaamin lahaa 5 sano ee soo socota. arrintan ayaana qayb ka ah sababta doorashada deegaanka Soomaalida dib loogu dhigay. colaad daran oo xabaddu aysan qoriga afkiisa ka bixin ayaa laga soo sheegayaa inay ka soo cusboonaatay degmada Dhuxul, taasoo ay hor fadhiyaan beelaha wadadega ee walaalaha ee reer Samatar iyo Bihini Garaad. colaadan ayaa la sheegayaa inay salka ku hayso dhul cidlo ah oo aysan cidi degin, islamarkaana aysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta, maadaama beeluhu daaqsinta xoolaha iyo wadadeganaanshuhu ka dhexeeyo. ayaan darro iyo jahilnimo ka weyni ma jirto in dadkeenu ay maanta dhul cidlo ah oo haddii la wada isticmaalo iyaga iyo kumanaan kalaba ka badan ay isku laayaan, iyagoo hub iyo rasaas isla hor fadhiya go'aansadayna inuu dhiigdaato. dhibaatadaas mas-uuliyadeeda waxaa iskale maamulka degmada Dhuxul iyo kan deegaanka oo uu ugu horeeyo Bashiir Shaash oo malaayiin lacaga ku bixinaya isku dhufashada labadan beelood, iyagoo maamulka deegaanka iyo kan degmadu haba yaraatee shacabka wax sii kala fogeynaya mooye wax isu soo dhaweynaya aan marnaba ula imanin. colaada Dhuxul ka soo cusboonaatay xubno heer deegaan ah, kuwa maamulka degmada ka mid ah iyo qurbo-joog dhaqaale ururisay si dab looga dhex shido beelahan walaalaha ee wadadega ayaa ka dambeeya. waxaanu uga digaynaa labada beelood ee walaalaha ee nabadda ku wada deganaa inaysan dhiigga wiilashooda xalaashanin oo ay ka waantoobaan falalka noocaasa, meeshay dhiiggooda ka xalaashan lahaayeenna inay xalaashadaan dhiigga maamulka sheega degmada amaba iska cadhiyaan maamulka degmada ee isku dirkooda u jooga miisaaniyadda malaayiinta ana ku qaata. ma jirto dowlad idinkala qaban oo idiin soo gurman oo iyadiibaa isku kiindiraysa miisaaniyadna idinku bixinaysa ee masaajidka ciyaarta ka daaya oo arrinta xaliya reer Samatar iyo Bihini Garaadow. cabdiqaadir bisle borotokoolkii hore ee Mustafa Cagshar ka horna jaasuus u soo ahaa madaxii sirdoonkii hore ee Itoobiya ee Getachew Asafa ayaa muuqaal uu soo duubay ugu goodiyey Mustafa Cagshar inuusan sii joogaynin kursiga maadaama uusan waxba hogaamin karin oo yahay beenaale ummadii iyo deegaankiiba iibsaday oo kun Facebook la ah oo codadaysan, iyo in marka uu xilka ka tago xataa uusan shaqo ka heli doonin hay'adihii uu dabada la geli jiray oo uusan dalka iyo deegaankaba kor uga bixi karin. shaqadaasna ay tahay midda uu hadda Maraykanka u joogo soona dhameeyey. dhanka kale wuxuu bisla sheegay islamarkaana uu fashiliyey inuu Mustafa Cagshar dambiyadii dagaalkii canfarta iyo Soomaalida inuu u xambaariyey ugaas Mustafaha beelweynta Ciise hogaamiya, isagoo weliba bisla cadeeyey inuu Mustafa Cagshar federaalka u qoray warqado dacwad qoraal ah oo uu kaga dalbanayo hay-adaha ammaanka inay dambiyadii dagaalkaas u soo xiraan ugaas Mustafaha beesha Ciise kurka u ah madaxana u saaran. wuxuu bisla intaas ku daray inuu Mustafa gulmeeyey Aadan Farax oo uusan Aadan Farax galbeedka gobolka City ka hadli karin xataa haddii Ciise oo dhan lagu mariyo, isagoo Aadan Farax og xaaladda dhabta ah ee galbeedka gobolkaasi ka jirta, ahna ninka saddexaad ee ugu tunka weyn dalka Itoobiya. haween ugaas Mustafa aanu maqaano ugaaska deegaankiina ugaasada ugu wanaagsan ah Soomaalidu meel ay degto dhan ugaas u ah
وانك مصطفى تاجوسي بعدادي بقيست وان مصطفى وانك اوغاس مصطفى تاجوسي اي دغالكا عنفرتا iyo deegaanka Soomaalida ka socda inta ka dambaysa waa Ugaas Mustafa la xirin dagaalkaas ma istaagay aadan faaraxna kulli waan ka hadli doonaa haddii la yiraahdo horta Mustafa waa ninkaasi xafiiskii peace salaam ministerka ku shirka lagu jiray Mustafa reportigu uu gudbiyay labo ahaa midna aadan uu kaga hadlayay oo goobta go'aan baa ka dhacay go'aan isaga uu ka soo shaqeeyay oo cid isaga la dajinaysana oo ahaa binaar filinka la yiraahdo uu ahaa buu aadan ku qaracay oo uu isagu uga gabaday hawshii markaas socotay Ugaas Mustafa ayuu Mustafa ku jaajuusay Ugaas Mustafa hal xiro Ethiopia dib isugu noqoto macquul yeeran noqon weeyday Ugaas Mustafa horta warqada report uu ka qoray baa yaala sugramis oo miiska saaran mar Soomaalinimada iyo ixtiraamka iyo xishoodka uu sheeganayo Mustafa xagee joogta waninka jaajuuska Ugaas Mustafa jaajuusay odayaashana ugaaskii la midka ahaa boorta halka mariyay marka waxaan la hagiraad kulmiye iyo odayaashii isaga la midka balamiyo dib isugu noqdo oo ninkan iska baar horta waxaan ogeyn dadka hal hore manina malaha ma ogidin baan u malayn hadeedan ogeyn anaga idin sheegin xaqiiqda dhabta meesha jirta hadeedan ogeyn anaga idin sheegin waxa weeyaan waninka Ugaas Mustafa halka mariyay ee jaajuusay Ugaas Mustafa wuxuu ka hadlay waxa weey war dhulkii anfarba boobayso shacabkii ku soo duushay Soomaaliyeed ee meesha degan oo kana dhul Soomaaliyeed in difaac baa loo leeyahay waan difaac aduu leeyahay ya sababta ciidanka loogu leeyahay meeshana waan ognahay sababta uu dagaalkaasi kolba u fashilmayo oo tan iyo maanta uu dagaalkaasi u socdana ya هذا ما تكتشفت ودكتها محل أمسنتها ودكتها هذا ما تكتشفت حقيقة قبت ماشي هلا أنا فرح ودكتها ما تكتشفت مس أنت هذا بتقول على هذا مالكي حفيزك سلام ليست كان علي بتقول على يلا جوسو سميه ولي هذا ليش يسوينا محل بالضبط عشان تواب كذا ليش يسوينا أيام قدينا ما هاي كسبان أنت وبس خذ الله كبايو dadkii ka soo qaxay galbeedka sitina suuqyada dawrsanayaan ama su'aal geesnimo hamuujiyaan ka hor intaan shinniga loogu imanin oo Mustafa Cashar Aadan Farax Ibrahim Usman iyo Dr. Yusuf meel ha uga soo wada jeedsada